midoobe adduunyada horu maray asaageena gaarnay Soomaaliya islaamina ummadaha midoobe adduunyada horu maray asaageena gaarnay Soomaaliya islaamina قليدو وكانوا افتيليا سيايا ومركيو امانكي النبت قليدو فردو افتيليا وجيدنا مركيدو درداراني وجيتنا مرتدو إري درداراني خدان هاي أنغو إندير قرد أقول يا عوانا Soomaaliya islaamina haddaan nahay anagu indheer garada aqoonyahan warwanaga ogaysiise Soomaaliya islaamina lazima mjue kila mtu ako na bedroom yake, sivyo? Bedroom ya wajia hizi ni nani? Bedroom ya wajia hizi ni ya nani? Bedroom ya Toshim ni ya nani? Sasa ni lazima nikaribishe kila kiongozi kwa hii kikao ya Wajia East ambaye ni headquarters ya Wajia County. Mumbefahamu? Sasa walaalayaal maanta aniga ballankiin qaaday oo Seekumujinga aan ka ballan qaaday reer Wajeer aan ka ballan qaaday inaan madaxda reer Wajeer oo dhammaala aan ku midowna arrinta foolka xum oo ka dhacday suuqii Seekumujinga oo dadkii ummadii ay ka ganacsanaysay haweenka dhalinyarada odayaalka ay ka ganacsanayeen aniga ballankaan qaaday maalintii arrinta dhacaysay waxa waaye inaan madaxda midayna oo siyaasi walba ka yimid cid walba ka yimid inaan ku midowna aslanka gargaarka Seekumujinga Soomeen waxaa sogsoyntiin aan u banaynaa habeenkii 3 saac ilaa ka 9 saac meeshaan aan joogni wixii gargaar aan keeni karo waa keeni waxaana ballan ku qaaday in aan madaxda keena Mheshimiwa Kainan Mheshimiwa Governor Dr. Hassan ambaye ni viongozi wa Wajia County sivyo maanta waxaan ku madaysanahay in aan suuqan maantana waxaan ku faraxsanahay shaqada siday u bilowday kaalmo meel walba ka imaaday حتى أهور مجاي كياتا كيما دي حتى مدحدا كلو كينيا كيما دي إن أنكم دونا سوقانيتو وجيقولا هاي أنكبدلنا أيان ما أنتو أسعنا إن أساسو قاتين أيان دولينا مركاو ما داما أنيقا نكي وكيل كهاي أو وجير إيستكي ما دي أو وكيل كهاي أرنتانا أي سيقل بحان إيتابان إيسا waxaan jeclaystay in chairman-kayni oo muxushimiyaalka kulli chairman ka ahay Honorable Kainan iyo Dr. Hassan in aan taladii aan la wadaaga iyo nin Allah ninkii madaxa oo meesha gargaar ka gaarsin karna
in aan kullu ku midowna aan gargaar u keenna walaalaheen maamooninkan meeshaan joogo inaan gargaar u keenna saddex walxaadan ani kaali rabaa baloodkan suuqa Mujinga taariikhdiisa waa dheerta ninkii reer Wajera ama Kenya oo hawo shakhsiyan ugu jirto waxaan rabaa maanta inuu maqla baloodkan waxa iska leh dadka reer Mujinga suuqa Mujinga ku beecshiraysanay waxaan ii sheegay inaan dawladda Kenya aan xoog saari doono qofka title-ka shakhsiyan haysto inuu ku soo celiyo dadkii halkan ka ganacsanay kan labaad dadkii dhibku ku dhacay waan nogsoonna waan wala kulmaynaa madaxdii waxaan in ballan qaadaynaa annagoo dawladda la kaashanayna madaxweynaha waddanka la kaashanayna ninka hadda aan dhisayno Mheshimiwa Raila Amolo Odinga la kaashanayna inaan wax rasmi ah oon hadal ahayn inaan in qaban doono dadku dhibaatadan ku dhacay anna wala kulmi doono ilaahay diira maanta safar baan ku soo marnay waa fadhiisanaynaa nidaam hoos aan u wala tashanaynaa ayadoosna hogaaminaa Mheshimiwa magaaladan Mzee Arkay Rashid Qasim waxaan u malaynaa muran kuma jiro inaas taa aabii magaalada Wajeer East haddayna ku celin adartana waa ku celinayna aabii magaaladan adiga waaye adiga noor kici ilaa duura waa fadhiisanaynaa waa tashanaynaa hadda socod baan ku soo marnay wixii aan isku soo keenana waa in la imaanaynaa guddigiina la fadhiisanaynaa maanta salaan bay ahayd mar kale waxaan leenahay Pooleni laakiin waxa soo gaartay wax kastaba qadar Ilaahay baa ka dhacaan suuqaas inaas gubta xaq Ilaahay ka horneed laakiin dawladana waxaan u sheegay bengine nitasema kwa Kiswahili wale wahusika wa usalama wasikie na wasihi uchunguzi rasmi ifanywe kitu gani imesababisha hiyo moto katika soko hii ambayo imeathiri maisha ya wandugu na madada wengi wakiongozwa na Mheshimiwa Rashid Qasim Governor candidate gubernatorial candidate Mheshimiwa Dr. Hassan Mheshimiwa Barrey Mheshimiwa Ibrahim Sheikh Mheshimiwa Salal tutakaa na waheshimiwa wale wengine wote tutakaa tujadiliane tuseme kitu gani imesababisha na tutafuta njia dhabiti ya RK. Salamu alaikum tena. Ninataka tu kusisitiza ambavyo viongozi wenzangu wamesema ya kwamba serikali tunaomba ichunguze chanzo na kiini cha hii moto ambao umefanyika hapa soko Mjinga. Na ingine tumekuja na wenzangu kuja kuwapatia pole na kuwaambia tumesimama na nyinyi na bado tutakaa tuongee na viongozi wenzetu tuweze kuhakikisha kwamba watu wetu ambao walipoteza hapa waweze kusaidiwa. Salamu alaykum walaalyaal wax kastaba qadar Allah ku dhacaan dhibaatadana qabsato dabka naga soo gaartay soo Mujinga Ilaahay yaa keene annakana insha Allah Poolenian in laanahay maadaama madaxda nahni tii countiga iyo tii nationalka maxaan ku codsanaynaa dadkaana ay dhibaatada walaaleen haysta inay gargaar insha Allah u keenaan walaalyaal aad u mahadsantiin insha Allah gargaar iyo duco waa in haynaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh walaalyaal marka hore waxaan u qaadanayaa waxaan qadar rabbi xaqiisa ka inama oo rabbaani inuu yahay marka walaalaha uu dhibka la soo darsay muxuu ahaa dhibkan weyn oo dabka uu gaaray waxaan ugu tacsiyeynayaa dhibka asaga anoo magacayga ku hadlaaya magaca gafanaagana ku hadlaaya magaca dadweynaha Wajeerna ku hadlaaya waxaan idin leeyahay ka muxuu ahaa insha ka bogsoodo dhibaatadan waxa kaloo inaan idinkugu daro rabaa haddii Ilaahay yiraahdo suuqan dhibkiisa waan wada taabtay waan wada dareennay insha Allah wixii tilaabeehna waan qaadaynaa annagoo iskala shaqaynayna muxuu ahaa dadweynahaas iyo muxuu ahaa dadkaas madaxda ah kulli waana taabtay waxaan rabaa inaan dhaho dadweynow dawladda waa aragtiin dhibkan waana dareen weyn buu nagu keenay insha Allah haddii Ilaahay yiraaha oo dawladdan aan muxuu ahaa barasaab ku xigeenka aan ka ahay meeshaan tilaabaan ka qaadaynaa Ilaahay katika hili moto janga hili la moto katika soko Mjinga hilo jina labda tutabadilisha inshallah
letu ni kuwapa faraji wale waliathirika na kusimama nao na kufanya yale yanatakana yote ili wajenge maisha yao. Watu wengi wanategemea hili soko, watu wengi sana. Tutafanya vyote ili tusaidie hawa kujenga na kurudisha maisha yao katika vile ilikuwapo kabla hiyo moto. Ya pili, vile wenzangu wamesema ni lazima tujue ni kiini cha moto hiyo ili kisitendeke tena. Kingine tunahitaji kushughulikia ni kazi ya wazima moto, sanitation, water. Kwa hapa hapana maji. Moto ilikuwa ndogo mbeleni, tuliongoja wakati mwingi sana kungoja lile gari la maji ilikuja kuzima hilo moto. Ni kitu cha muhimu kufikiria hayo mambo ya emergency ili tuweze kukabiliana nao kesho ikija mara nyingine.